telefishinka CNN ayaa markii ugu horeysay baahiyay filin arrin masiiba oo ka taagan dalka Liibiya. dad u dhashay Afrikada galbeed, Soomaali iyo Eritrean ayaa suuqyada sidii xawayaankii lagu kala gadanayaa, iyadoo dadkan lagu gadanayo wax ka yar 800 oo diinaar ama 1000 diinaar. dadkan ayaa doon ahaan loo gadanayaa, waxaana lagu fashaa beeraha iyo weliba shaqooyin adag oo kale. dadkan ayaa la sheegay in doon ahaan loo gato, waxaana la sheegay inay ku jiraan goobo sidii bakhaaro ama makhaasiin oo kala. waxaana la sheegay qaarkood inuu ka muuqdo jirdil iyo weliba nabaro waaweyn oo jirkooda ku yaala. gabadha iyadoo duubtay fiidiyogan ayaa sheegtay in dadkan qadar daqiiqada gudaheeda lagu kala gadanayo. shaqaalaha ka shaqeeya goobaha dadka la soo xiro ee lagu soo qabto badda iyo muhaajiriinta ayaa sheegay in dadkan wax walba ay haysteen laga qaatay, nololna aysan u harsanayn, loona baahan yahay in wadamadoodii lagu celiyo.